kulanti wanaagsan daawadayaasha qiimaha leh waa markale barnaamijkeeni Hurfadhi Media ee Dhulmar oo ku sugan magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya. Maanta barnaamijka waxa marti inooga wasiirka hore ee wasaaradda warfaafinta boostaha iyo isgaarsiinta mudane Cabdiqaadir Xuseen Jahweyn oo sidoo kalena cilmi badan iyo aqoon badan ama shaqo badan aad uga shaqeeyay arrimaha telekomka Soomaaliya isgaarsiinta day tahay daawadayaasha qiimaha in badan waxa daawadayaasha aad nooga dalbadeen ama noo weydiiyeen inaan wax ka ogaano heerka tiknoolajiyada internetka ama sida Soomaalidu maanta u fahansan tahay ama heerka ay ka joogto wasiirku wuxuu macluumaad inaga sii doonaa hadii ay idmo arrimahaas iyo kuwa kale isagoo inaga xaqtiri doona wasiir Soomaaliyeed uu yahay sidoo kalena uu inoo sheegi doono balse Soomaaliya internetka uu hesho halka uu marayo isticmaalka dadka Soomaalida internetka iyo waxyaalo badan wasiir magacaygu waa Xashi ku soo dhaw barnaamijka Dhulmar ee Hurfadhi Media waxaan jeclahay wasiir Cabdiqaadir Xuseen inaan ku weydiiyo ugu horeyn adoo bacda soo dhaweynta bal inaad naga siiso warbixin guud halka tiknoolajiyada internetka iyo waliba marka ay timaado baahida iyo waliba waxa laga qabtay ee ummadda Soomaaliyeed ay marayso maanta bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore xaash soo dhaw waan ku faraxsanahay inaan maanta halkan ku kulanno oo aan iska wareysano mowduuc kamid ah arrimaha dalka iyo dadka aad muhiimka ugu ah waa soo dhaweynayaa Hurfadhi Media iyo dadaalka iyo hawlaha runtii qiimaha leh aad bulshada u haysaan iyo sida aad ugu suura galiseen dad badan inay wax ka ogaadaan dalka shaqada aad haysaanna waa bogaadinaya marka taa hore soo dhaw haddii aan su'aashaada ahayd inaan wax ka ogaano guud ahaan tiknoolajiyada dalka xaaladdeeda siday tahay gaar ahaan internetka iyo adeegyada internetka runtii waxaan isleeyahay Soomaaliya marka hadda la yiraahdo waqtigan xaadirka adeega internetka iyo isticmaalkiisu waxa uu marayaa heer wanaagsan waxaana ka muuqata tilmaam ama yadiila ah inuu horumar sameynayo inkastoo marka dib u noqoto xilliyadii taariikhda internetku ay xoog yeelatay ama soo bilaabatayba oo adduunka intiisa kale ay la jaan qaadeen anagu duruufo gaar noo ah oo dagaal sokeey iyo dib ay jireen sababtoo ah ogtahay taariikhda horumarka internetku wuxuu bilowgeedii waa horaantii 90meeyadii waana xilliga runtii qaranjabku iyo dibku dhacay balse waqti aan ka fogeynba waxaad moodaa guud ahaan tiknoolajiyada iyo isgaarsiinta marka la yiraahdo oo ay qayb internet ka tahayba in dadaal badan oo dad si gaar isku xilqaamay ay u galeen oo ganacsatada u badan in dalka la soo gaarsiiyay in muddadii 90meeyadii bilowgeedii 93 kale in la bilaabay in isgaarsiintu ay hana qaado waxa jira shirkado gaar loo leeyahay oo private inay bilaabeen telefoonada heer waqtina soo gaarsiiyeen muddo gaaban adeegyadaasi Afrika iyo wadamo badan iyagoon wali si fiican uga taabagal inay halkan runtii ka taabagaleen tii waxay dhaxal siisay inuu dadku ay la noqdaan wax noloshooda kamida rabitaankooda iyo dalabkooduna mar walba bato marka shaqadaas dadkii aqoon ahaan iyo ganacsi ahaan u galay waxa mar walba saarnaa culays ah in dalab badan uu hortooda yaalo oo leeyahay internetku naguma filna telefoonku sidaan maaha marka waxay qasbaysaa mar walba inay tiknoolajiyada la socdaan taana waxay lahayd culays badan oo maadaama wadankuusan deganayn internetku waxay ahayd mid ku tiirsan adeegyada satellite-ka oo runtii qarashkeeda aad u badnaa balse nasiib wanaag wixii lagu gaaray 2013 yaa waxa dhacday fursad in wadankan uu soo gaaray tiknoolajiyadan fiber optic ah oo qayb ka ahayd isku xirka in adduunka intiisa kale aan si toos ugu xirno dadaal badan baa loo maray dhaqaale badan baa lagu bixiyay runtii waxay indhaha u furtay ama ay fududeysay in adeegyo fara badan oo awal markii hore aad u adkeyd in la helo waxaana ka faa'iideystay dhammaan qaybaha bulshada waxa noqoto xag ganacsiga bangiyada iyo maaragtay adeegyada kale bulsho iyo xagga waxbarashada jaamacadaha iskuulada isbitaalada inta waxay isticmaalaan tiknoolajiyada runtii waxa aad ku qiimo badan in dad badan oo dhalinyarada oo ah numberka ugu badan oo Soomaali markii maanta tiradeeda waad garanaysaa iyo afar meelood leeyahay saddex kamid ah waa 16 iyo wixii ka weyn inay baahidaas wax ku bartaan inay bilowgeedii la gaaray
sidaasay tahana weli fari kama qodna oo isticmaalka markaad fiiriso cabirka lagu cabiro adeega isticmaalkiisa ama penetrationka internetka aad buu u hooseeyaa oo wuxuu marayaa wax ka yar 10% Soomaaliya dhan guud ahaan marka 90% wadda Soomaaliyeed yaa weliba wadanka marka loo fiiriyo isticmaalkiisu waa dhiman yahay isticmaalka mobileka oo voice-ka ama adeegyada kale sida lacagaha lagu kala wareejiyana sar u kacay uu fiican yahay ilaa 52% meelahaas uu maraya macnaheedu waa weli waa sii dhiman yahay oo dad badan baan isticmaalin laakiin internet fari kama qodna kuma joogo waxaan nasiib wanaaga in ay xaadir hadda wadanku ku yihiin awoodii uu ku balaara lahaa balse uu u baahan yahay waxyaabaha kale saacidaya ee nolosha iyo awoodda iyo dhaqaalaha iyo amniga inuu xasilo inay hor wardo way aad baad mahadsantahay saad u dhigtay marka laga hadlayo laakiin aqoonta loo leeyahay internetka ama dadku aqoonta ay u leeyihiin tiknoolajiyada iyo qalabka internetka loo adeegsanayo halkee bay Soomaalidu ka taagantay runtii aqoonta waa arrimaha taxadiga ama culayska ku ah bay ka mid waad ogtahay systemka waxbarashada iyo teknoolajiyada guud ahaan ama IT ha noqoto ama telecommunicationka ardayda iyo macallimiinta bartay iyo xarumihii daraasaadkaas lagu sameyn lahaa ama cilmi baaristaasi wadanka ma laha waxaa jira nasiib wanaag dhalinyaro iyo dad dalka dibadda uga baxay oo fursad u helay inay dibadda wax ka soo bartaan laakiin marka loo fiiriyo baahida wadanku uu qabay way adag tahay may kaafin mana u dhawa saasaad waxaa arkaysaa markii teknoolajiyada la keeno marar qaar inay qasab noqoto in dadkii suuro gelin lahaa rakibi lahaa ka dhigi lahaa wax shaqeeya ay dibadda kala yimaadaan oo ay qofku shirkadu mesela ay qalab markay iibsato qayb kamid ay tahay tababaro iyo dadkii rakibaadeedii iyo waxeedii sameyn lahaa halkii lagu kaaftoomi lahaa inay jiraan aqoonyahan meeshan jira way hadda waxa bilowday jaamacado iyo macahad runtii maadooyinkaas bixiya oo aad moodo inay kaalin fiican ay gaarsiiyeen inay aqoonta dadka ay sar u qaadaan balse weli waxa ka dhiman dariiq dheer in loo maray rabtaa taas waa xagga aqoonta dhinaca baahitaankeeda iyo in ay gaarto meeshii la rabay waa sida haddaan ku sheegay xisaabaadku waxayna tusayaan inay weli aysan dhaweyn aysan fara ka qodnay laakiin waa ififaaluhu wuu muuqdaa waxaana muujin kara waxaa jira maalgelin badan oo ay shirkaduhu ku dadaalayaan inay infrastructure-kii wax ka dhisaan waxaa kaloo jira rabitaankii uu qasbaya duruufaha noloshana oo maalinta ka dambe sii badanaya intaba waxay dhiirigelinayaan in aqoontina laga dhiso lana sameeyo baahin adeegii intiisa kale marka la eego faa'iidooyinka uu internetku maanta dunida ku soo kordhiyay aad rabto in ummadda Soomaalida ay ka faa'iideysato iyadoo waxyaalo badan oo aynu ognahay ay internetku faa'iido u yahay ama wax badan fududeeyay bal 1 iyo 2 iyo 3 uga taataabo marka ay noqoto waxyaalaha nolosha ama haday noqoto aqoonta ama haday noqoto xiriir waxyaalaha aad leedahay way ugu muhiimsan yihiin internetku ku soo kordhiyay dunida faa'iidooyinka runtii internetku faa'iidooyinkooda aad isticmaalkeeda aad buu u badan yahay waxaana asal marka hore u ah inuu sahlay uu fududeeyay in dadku wada xiriiraan communicationka oo macnaheedu taa aqoontii meeshii ay jirtay cilmigu meeshii uu jiray ganacsigu meeshii uu jiray inaad si sahlan ku gaari karto oo aad waxna ka baran karto wuxuu fududeeyay in dhalinyarada iyo dadka wax baranaya ay u helaan access u helaan ama ay gaari karaan aqoontii meeshii ay tahay haday noqoto library-yadii buugaagtii iyo kaydkii adduunka u yaalay waxaa jira resource badan oo ka dhaxeeya ummaduhu ay ururiyeen oo dabcan culumtu meel bay ku urursan tahay wadamadan horumaray ee leh kaabayaasha isgaarsiin ama internetka xoogan waxa u sahlan dadkooda wax baranaya inay si sahlan ku helaan halkan ay adkayd qofku inuu internetku ku galo laakiin nasiib wanaag maanta internet uu isticmaalo heli karaa dabcan internetku culeyskeeda iyo dhibaatooyinkeeda bulsho way wadataa markay noqoto xiriirka iyo information raadinta sababtoo ah information kasta adiga waxa laga yaabaa ka bulsho ahaan inuusan kugu ahayn wax sax oo ay maaragtay u baahan tahay iyada lafteedu in dhibaatooyinkeedana la darso faa'iidooyinkeedana la darso waxaan isleeyahay arintaas iyo ka wacyigelinteeda iyo la xisaabtankeeda iyo waxaa jira waxyaabihii culeysyada haystay ka mid ahayd waxyaabaha regulatory-ga ama hay'adaha dawladnimada ah xeer nidaaminta leh inay iyagu sameeyaan
waana midii hadda markii ugu horeysay dabcan sharcigii isgaarsiinta iyo waatii lagu guuleystay in la meel mariyo policy waxaan maqlay isbuucii la soo dhaafay policyga oo ICT sectorka in iyada lafteeda laga shaqeeyo waxaas oo dhan inaysan ku koobnaan warqado ay noqdaan wax la hirgeliyo oo bulshada wax u tara marka faa'iidooyin badan bay leedahay noloshii bay wax ka bedeshay waxaad arkaysaa saakay dhalinyaro badan oo ku shaqaysata internet wax yar ka hor waxaan la hadlayay in travel agency leh oo online ku shaqaysta tigidhada ku jira macaamiishiisii meeshii uu isagu dukaan inuu furo oo baabuur la kaxisto laga soo qaadi lahaa tigidhka kuu soo diraya kuu goynaya availability iyo siduu aad u heli karto kuu sheegaya qiimihii halka isagoo xafiiskiisa fadhiya iyo adduunka oo idil ka shaqaysanaya marka runtii helitaanka internetku waxay dhiirigelisay horumarkaas dhaqaalaha shaqo abuurka waxbarashada arrimahan kale dhaqaatiirta mid ka mid ah isbitaalada aan booqday waxay arkaysaa in markii ruuxa qofka uu yimaado uu kala talo caafimaad siinayo inuu u suura geli karto inuu dhakhtar kale oo magaalo kale jooga inuu kala taliyo uu la tashado oo ay live communication iskula sameeyaan isagoo halkii fadhiya uu yiraahdo raajadii tuso sawirkii uu ka qaaday uu la fiiriyo si go'aan ay u wada qaataan mid ka mid ah jaamacadaha waxaan sameynay adeegyada ka isticmaala shirkadaha hadda jira ka mid ah in ardaydaasi ay casharo ku qaataan macallimiin jooga North America ay casharo ku siiyaan iyagoo arday Soomaali jooga su'aalo ay weydiinayaan ma suura gali lahayn haddaysan internetka ahayn waxaa kaloo internetka uu suura geliyay iyo dhismaha infrastructure-ka hadda internetka markii global laga yimaado xitaa dhismaha la dhisay kaabayaasha muhiimka in jaamacado leh hal jaamacado ugu yaraan 3-4 xarumood leh kambas leh in halkii ay ku kala fogaayeen awan markii hore hadda ay isku xiran yihiin resource-ka ay isla isticmaalayaan hal library isla isticmaalayaan ardaydu iyo xarumo kala duwan jooga marka intaasba waxyaabaha suura geliyay dhismaha la dhisay internetka iyo faa'iidadiisa iyo infrastructure-ka guud ahaan internetka la xiriira iyo communication-ka shirkado markaan soo dadegno xagga shaqooyinka aad qabataan adiga ka Cabdulqaadir ahaan shirkado hadeerto aad ugu awoodeysan marka la eego dhinaca tabagelinta internetka iyo ka faa'iideysigiisa ayaad ku dhex jirta dhowr shirkadood marka bal ka waran shirkadahaas iyo noocyada u shaqeeyaan waxyaalaha ku soo kordhiyeen wax ka qabashada baahida ummadda Soomaalida waa runtaa anagu ka professional ahaan markii la yiraahdo sector-kan baan ka nimid oo horumarintiisa waa mar walba haddii xilahay haddii kale mar walba waajib aynu waana shaqooyinka aan qabanaynay waxaa jira dhowr shirkadood oo aan wada shaqayn naga dhaxayso oo howlo badan ka qabanay si loo horumariyo dhinacyada isgaarsiinta qaybo ka mid ah infrastructure-kii dhisaan oo macnaheedu ay tahay maadaama wadankii awood badan oo communication loo baahan yahay teknolojiyadana isbedeshay inay dhisaan qalab iyo maalgelin ku sameeyaan in la dhiso kaabayaal xambaari kara awood badan oo xiriirka communication-ka ah taasi waxay shirkadahaas oo kale waxay dhiseen waxaan magaalada isku xirkeeda iyo fiber optic-yada magaalada hadda adeegyada baaxadda la sameeyo oo aad arkayso in laga geli karo mesela xagga warbaahinta inoo kale inay meelo toos wax ka soo tirin karto live markii hore waxa suuragal ahayd waayii hore in satellite loo isticmaali jiray tabinta tooska ah ee meelaha fog laakiin hadda waxa suuragal ah in internet connection haduu helo awoodiisa ay saamaxayso inaad toos live u gashaan bangiyada iyo xawaaladahooda aragtay habka ay u isticmaalayaan adeegyada oo ah qofku markuu diro inuu markiiba instant uu ku helo lacagtiisa si joogta waxaas waxa hirgeli kara waxaad aragtay bangiyadana inuu hadda bilaabeen in ATM machines iyo adduun oo kaararkii la baxdaan waxyaabahaas oo dhan infrastructure-kii u baahan yihiin waa internet awood leh iyo ama haddii san internet xitaa global connectivity aan ahayn oo loo kala xataa adduunka haddii san ku xirnayn bangigii iyo xarumihiisii iyo bangigii iyo ATM machine-kii meesha yaallay inay isku xirayso waa inay suura geliso marka waxaan ula jeedaa runtii shirkadahan oo dhan qaybo kala duwan weyn qolaba qayb bay ka adeegtaa qayb infrastructure-ka dhisaan qayb waxa laga yaabaa waxay aadaa dhinaca ISP-yada la yiraahdo oo internetyada gaarsiiya macaamiisha yaryar gaarsiiya oo aan ayagu baahi weyn oo internet qabin qayb waxay u adeegtaa shirkadaha kale ISP-yada bixiya oo ayagu waxay isku xiraan adeegan la qaado
globally inay halkan ka qaadaan oo ay geeyaan adduunka intiisa kale marka runtii shirkadahaasoo dhan waxay xigmadda laga lahaa oo laguna guulaystay ay tahay inay adeegyadaas kala duwan bulshada u qabtaan fursado badanna way abuureen shaqooyin badanna mujtamaca runtii way suuro geliyeen in dhalinyaradu ka faa'iideysto gaar ahaan marka ay timaado mudane jahweyn waxa adinku aad ku soo kordhiseen internetka hore shirkadahan adoo magacyada shirkadahan ay ugu daraya waa maxay waxaad xambaarsan tihiin macnaha bal faahfaahin ka bixi qaabkan fiber optic aad u samaysaan iyo sida aad u weelaysaan iyo sida magaalooyinka aad ka shaqaysaan bal arintaas warbixin qoto dheer ka bixi okay arinta adeegyada tusaale ahaan shirkadda fiber optic dhigto kale waxa la yiraahdaa Somali Optical Networks SON loo soo gaabay shirkadda SON oo kale muhiimadeeda ugu weyn ama hawsha ugu weyn ee qabato waxa weeye in ay diyaariso kaabayaal isgaarsiin oo awood u leh inay xambaaraan capacity-ga dalka timid gaarsiiyaana dalka gudihiisa oo ay ka bilaabayaan magaalooyinka ay dadku ku badan yihiin oo adeegyadu u baahan yihiin taasoo macnaheedu tahay markii hore wadanku hore uma dhisnayn infrastructure awood leh ma jirin oo macnaha keebaladii hore ay shirkadaha isgaarsiinta isticmaali jireen ama intii ka horeysay isgaarsiintu ay gacan dawladda ku jirtaba ma aha awoodna uma leh inay qaadaan awood hadda la iska rabo adigu aad u baahan tahay ganacsaduhu kale u baahan yahay bangigu u baahan yahay keebal awood leh marka shirkadan muhiimadeedu waxay dhismaheeda inay dhisto adeegaas bay bixisaa waxaana u adeegtaa shirkadaha ayagu adeega qaybta hoose ee suuqa gaarsiisa ay ugu tala gashay in ay ka kaalmayso waana adeeg furan oo macnaheedu yahay in markii la dhiso laga wada faa'iideysto oo aan koox gaar ah ama shirkad gaar ah u xirnayn macnaheedu taa waxa la badbaadinayaa in tayadana qiimo noqoto marketkan oo runtii capitalkiisu badan yahay isgaarsiintu waxay kaga duwan tahay dhinacyada kale dhaqaale waxay u baahan tahay dhaqaale aad u fara badan si marka dhaqaalaha Soomaalida ama Soomaaliga muwaadinka Soomaali loo badbaadiyo waa in laga baajiyaa in shaqo isku mid ah la wada qabto mar walba oo lacag isku mid ah la bixiyo oo qalab aan loo baahnayn marka haddii shirkadi qabato shaqo waxa la rabaa shaqada inay albaabada u furto shirkadaha kale ee isticmaala maalgelintaas ka faa'iideysta shirkadan marka approach-ka la timid kaas buu ahaa marka soo waxay la timid shirkadii kale gacanta iyo u furtay network-gooda u furtay marka see marka taas u fasiri sidee ugu furteen waxa loogu furay midalan markii ay noqoto in capacity ama awood internet ama xiriir baad waxaad uga baahan tahay gobolkan iyo inaad jawhar ama gobol kale gaarsiiso meeshii company isagu inuu wax dhisi lahaa oo isagu sameyn lahaa maalgelin tiro badan sida lagu yaqaanay sectorkan oo ahayd in nin walba kaligiis wixiisu iska dhisto oo aysan dhicin conceptigan infrastructure sharing waxa la yiraahdo isla wadaago fikradaas ay nagu adkeed oo arkayso meel cidla baadiya 3 tower dhisan iyagoo hal tower shirkadu ku filnayd inay wadaagaan laakiin dhaxdoodii inaysan isdhexgalka in isdhexgalkaasi soo noqdo way ugu horeyso in shirkadu ay u furtay shirkadaha kale ay yiraahdaan uma baahnidin inaad maalgelin sameysaan taayada isticmaal kan isticmaal marka tiina hada soon wala isticmaal shirkad kasto Soomaaliya isticmaal adeega ay hayso iyo network u dhisan iyo kaabayaasha infrastructure ay dhistay oo boqolaalka kilomitir waxay u diyaarsan yihiin in shirkadaha waaweyn ay isticmaalaan uma baahna inay maalgelin kale marka waa arin ka duwan oo marka muujinaysa in ganacsiga Soomaalidu furfurnaado meeshii nin walba wuxuu dhisto ama shirkad walba waxay dhisatay kaligiis laha ana iskale hadda waa la dhisay waa la wadaagayaa shirkadanna waxay xaqiijinaysaa in goor walba adeegeedii uu noqdo habkii loogu talagalay standardkii loogu talagalay tayadii la rabay ee mar walba ay ahayd inuu adeega uu kaamil yahay la isku halay karo diyaar ah leh wixii la ballan qaaday in loo ballan qaaday qofka isticmaalay marka sidaas ay muhiim u tahay laakiin wali ummadda Soomaalida qaarkood ama mararka qaarkood internet culays waxaas baa laga cawdaa marka idinka shirkadiinu soo sheegaysa waa fiber waa dhulka la gelinay inta badan ka dhulka la gelinay aad baa loo amaana marka ay timaado in uu yahay internet xooggan oo ama si wacan u soconaya marka waa maxay garantiyada waa maxay macnaha ballanqaadka aad sameynaysan ee ku saabsan in internetkii uu noqdo mid la isku halleeyo karo cidii ka shatay oo ay doonto
ballanqaadku ugu weyn horta waa teknolojiyada nafteeda qalabka la isticmaalayo yaa sida hadda aad sheegto oo ah inuu fiberku kaga duwan yahay wixii hore la isticmaali jiray ama raadiyaasha la isticmaalo oo hawada la marsiyo lagu laliyo iyo hirarka microwave-yada iyo wax la midka oo isticmaala radioga iyo fiilooyinka kale ee kala duwanaa kubarka iyo kuwii ka horeeyay intaba teknolojiyadan yaa waxay muujisay waa waxyaabaha nicmooyinka ilaahay bini'aadanka sii ka mid tahay teknolojiya gaara oo fariida way oo awood u leh in intaasoo bilyan oo signal ugu dhex mari karo iyadoo aan sida kuwii hore kale isdhexgal aan lahayn interference ma laha mid ku dhacaysa ma laha sidaas daraaddeed wixii ay la marsiiyo halkan ay ka qaado iyo meeshii loogu talagalay markay gaarto iyadoon quality-gu ay isdhimin iyo ku gaaraysaa oo tayadii ay joogto halka qalabkii kale la isticmaali jiray ay saameyn ku lahayd dabeecadda kale nolosha ama kulaylka ama hawada ama dabeelaha socda cimilada guud ahaan ay saameyn ay ku lahayd kani wuu ka duwan yahay waa mar nooca dabeecadiisa asaas inuu u samaysan yahay u samaysan yahay waxay tahay iyadoo maraysa teknolojiyadu in meeshii laga qaado meeshii loogu talagalay markii sida inuusan isbedel samayn exactly marka ballanqaadka ugu weyn horta waa teknolojiyada midda xigta waa adeegga laga hayo in goor walba lagu dadaalo dalkeena dib u dhismayaa maalin walba waxaa dhici karta in timaado dhismaha uu saameyn ku yeelo waxa dhul gudihiisa ku jira laakiin in shaqaale iyo dad aqoon u leh loo tababaray mar walba diyaar u ah heegan ku jira haddii xitaa qalab yimaado ama ay cilada timaado ku baxa markiina servicekii adeegga soo celiya marka taana waxyaabaha dadka dhiirigelinaya ka mid tahay oo qayb ka mid ah adeegga in lagu sharxo in uu qofku ku heli karo kalsoonina ku heli karo in adeeggaasi khariirada markaan fiiriyay xafiiskaaga taalo waxaan arkay inaad magaalada muqdisho oo dhan wada gaarsiiseen adeegii dhismayaasha qalabkan kaabayaashan internetka qaadaya fiberka aad ku igaarteen marka ujeedkiinu maxamar kaliya mise wadanka oo dhan wad gaaraysan iyo waliba wadamada kale dariska iyo meelo kale wad gaari awoodda ma leedihiin macna dabcan qorshaha iyo hadafka dhow iyo midka dhexe iyo ku fogba oo ay shirkadan leedahay sida ku cad warbixinteeda aad aragtay ma aha magaaladan oo kaliya dhammaan dalka oo dhan in la gaarsiiyo awood internet iyo isku xir fiican kadibna loogu gudbo regionka waa la socotaa isbedelada dalka ka socda iyo gobolkan aan degannahay intaba baahi weyn baa ka jirta oo xagga internetka marka bilowgeedii iyo halka laan macna uu ka soo degay keebalka weyn baa ahaa magaalada caasimadda sidaasay ku bilaabatay ilaa haddana gobolada adeeg uu gaaraa inkastuusan fiberka ku gaarin qaybo badan oo ka mid kaas waxaa jira dhismihiisii baa socda dhismihii gobolada qaar buu sii aaday oo already shaqada uu socoto laakiin xagga markii loo isticmaalo teknolojiyada kale oo qayb ka ahayd adeegyada shirkadu qabato ilaa iyo gobolada dhexoo dhan uu gaaray ilaa iyo galmudug dhinaca uu jiraa ilaa iyo dhinacan ilaa koonfurtoo dhan buu gaaray ilaa iyo kismaayo uu gaaray marka raadiyaal bay ku gaareen iyo communication noocaas oo kale laakiin mustaqbalka waxaan rajaynaynaa in fursad loo helo in shabakadahani dalkoo dhan lagu baahiyo kadibna aan xuduudaha dalka cidiba u baahan waayo wadankeenu wadan xeeb leh oo faa'iidadiisu ay tahay inuu adeegii soo galay wadanka inuu ku xirnaado inta kale yaan suuragelin karnaa marka waa mustaqbal runtii aad u muuqda oo baahi weyn loo qabo waan rajaynaynaa in la baahiyo adeegaas way xagga internetka waxaa muuqateen xoog badan saarteen isla markaana aad qalab aad badan saacadii saad keenteen aad buu u xoogan yahay ilaa xad runtii markay tahay xagga telefoonka ka warnayada telefoonka dabcan waayan waa la socotaa isbedelka telefoonka ku yimid isticmaalkiisa dadku inta badan internetka ay aadeen waxaa hoos u dhac ku yimid habkii hore traditionalka loo isticmaali jiray telefoon inuu iska bedelo oo dadku iyagoo internetkoodii baa laga yaabaa inay ka dhex isticmaalaan telefoonka laakiin weli maadaama wadanku uusan gaarsiisnayn isticmaalkeena internetkana aad buu u badan yahay shirkadan oo kale marka waxay dhiirigelinaysaa shirkadihii hore ee adeegyada bixinayay ama mobileka ha noqoto ama shirkadaha landline-kaba in teknolojiyadan ay u isticmaalaan lafteeda inay marsiistaan
maadaama tayadeedu aad u sareyso marka waa shirkad kale oo walaalatiin baa jirto mataanatiin oo dhinaca internetka mobilka qabsan markii isku xirka mise soon u baqab son waa infrastructure way company infrastructure dhiso way laakiin waxaa jira shirkado badan oo aan leenahay cilaaqaad leenahay oo aan adeegyadaas u fududeyno shirkadaha waaweyn intooda badanba waxay isticmaalaan adeega soon bay isticmaalaan waxay isticmaalayaan waa sidaan kuu sheego oo furnaanshaha ah iyo inaysan dabcan kalsooni dheer lagu abuuray inay iska bayaan aysan tartan iskula jirin laakiin ay wadajir u wada shaqeeyaan inay ku faa'iido badan tahay in qolo walba kaligeed ay shaqo u qabato marka si guud markaad isu soo duubto marka internetka iyo su'aashaadii ahayd taleefanka caadiga ah intaba uu anfacayaa dhismaha la dhisay waayo taleefankii baa la marsiinayaa laftiisa sida internetka loo marsiiyay telefoonka wad keenaysan voice of IP ga la xalleeyo kale shirkadihii yaa isticmaalay ma anagu waxaan rabnaa soon waxa la rabaa inay kuwa jira dhisto ay kaabto iyadoo ayagu telefoon inay sameeyaan qorshaha ugu ma jiro waa infrastructure company oo dhisaya kaabayaasha waaweyn oo ay isticmaali doonaan shirkadahaas wadanka oo dhan ku baahin doonaan core businesska ama ulajeedka ugu weyn ee shirkadu ay leedahay waa qaybtaas laakiin waxaan maqlay waxa soo shirkado kale jiro ay kamid tahay sahal iyo sidoo kale shirkada la yiraahdo Nationalink oo dib u soo noqonaysa ayaga macluumaad shirkaduhu exactly way jiraan shirkadahaas shirkado hadda shaqeeyo oo sida Somtel iyo way jiraan adeegyo aan siino soo markii la joogo xageeda macnaha waxay shirkadahaas oo dhan sidii u kobcin lahayd u wada dhisi lahayd bay lamid shirkadaas la mid noqonayaan iyo la mid ay wada dhisayaan exactly waxaan ugu talagalnay sidaan sheegnay adeegu u wada furayaa dhamaantood kuwas gaar loo siiyo oo gooni loo siinayo ma jiro iyagoo dhan baa loo furaya waan laga wada faa'iideysanaya laakiin shirkadani dabcan waxaa jiraya wada shaqeyn haday timaadana shirkada aad tihiin baa jira xiriir wada shaqeyn iyo mid ka dhaxeyn karaan masaalix iyo dana kale marka laakiin guud ahaan shirkadanu waxay u taagan tahay horumarinta furan oo dhismaha iyo kobcinta iyo tayeynta kaabayaasha isgaarsiinta dalka aad waad mahadsan tahay wasiir Cabdiqaadir Xuseen Jahweyn wasiirka hore wasaaradda warfaafinta iyo basta isgaarsiinta Soomaaliya sidoo kale hadirto qaybtan dhinaca internetka iyo waliba waxyaalaha la xiriira dhinaca isgaarsiinta aad ugu jira oo igu warramay magaalada Muqdisho xafiiskiisa uu ku leeyahay xarunta dalka Soomaaliya daawasho qiimaha leh barnaamijka Dhulmar oo aan aamsanahay inaad qaybta tiknoolajiyada iyo qaybahan isgaarsiinta dalka internetka iyo baahiyaha ka jira iyo waliba shirkadaha waaweyn ee wadanka ku soo kordhay aad kaga bogateen xogo badan tan inta sarki doono amaana la wasiir mahadsantahay aad u mahadsantahay